haweenka ka soo jeeda gobolka Gaardafuu ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku taageerayaan musharaxa xildhibaanka deegaankaasi sida warbixinta uu nagu soo diriyay wariyahayna Maxamed Deeq Cabdallah. kulankan oo ahaa mid si weyn loo soo qabanqaabiyay waxa lagu qabtay xarunta xaafadda Dayaxa ee Boosaaso waxaana kulankan ujeedkiisu ahaa sidii haweenka ka soo jeeda gobolka Gaardafuu ay u muujin lahaayeen taageerada ay u hayaan musharaxa xildhibaanka deegaanka inay noqoto Muxubo Cismaan Guuleed. haween fara badan oo kulanka joogay ayaa baaq cod dheer u diray dhammaanba odayaasha iyo beeldaajaha guud ee beesha in Muxubo Cismaan ay noqoto xildhibaanka baarlamaanka ee Puntland. qaar ka mid ah haweenka ardayda ka xarumaha waxbarashada ee Puntland oo ka soo qayb galay kulankaasi ayaa dhammaantood muujiyay dareenka ay ku soo dhaweynayaan musharaxa xildhibaanka baarlamaanka inay noqoto Muxubo Cismaan. magacaygu waa Maryam Axmed Cabdalla Kanada kamida bahda caafimaadka aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu rajaynaynaa Muxubo inay noqoto qoftii ugu horeysay ee noqoto gudoomiyaha baarlamaanka ee gabara ee matasha gobolka Gaardafuu. anigoo magacayga ah Milki Maxamed Cuweyd oo ku hadlaya aqoon-yahaniinta beesha Gaardafuu qasada gabdhaha jaamacadaha waan soo dhaweynaynaa xildhibaanadeena. anigoo ah Samiira Jaamac Maxamed ahna qabanqaabiyaasha barnaamijkan ama xafladan waxaan ku soo dhaweynayaa maama Muxubo Cismaan Guuleed codkayga oo buuxana waa si aniga ahaan anoo ka soo jeeda degmada Caruula qaasatan. muxubo xildhibaanad buuxdo aan beenahayn bahdeer jeceshahayo bariyo dhan taagantahay baraga qodaysa cisbitaallo lagu bogsado agoonnadii badhin u saamaysan beenahayn. dhammaanteenu isku duuban waxaanu halkan ka sheegaynaa inaanu codkeena siinayno anoo u hadlaaya magaca dhalinyarada beesha xildhibaanadeena. waxaan ku siinay Muxubo Cismaan Guuleed codkayaga oo dhan haddii aan nahay beesha Swakhroon khaasatan dumarka oo dhan waa kula shaqeynaynaa si aad iyo aad u dhow waana ku hagarbaxaynaa waqtigeena iyo xoolaheena si aan u noqono hal far. waxaan walaashay aan ku soo dhaweynay oo magacayaga ku siinay kalsooni iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay qiro ku dheehan tahay iyadana waxaan uga baahanahay insha Allah inay tagtaa Caluula. odayaasha isimada nabadoonnada beeldaajuhu u weyn yahay waxaanu leenahay codkayagii iyo masiirkayagii gabdhaha Swakhroon haddaanu nahay waxaanu siinay Muxubo Cismaan Guuleed waxaanu codkayagii siinay Muxubo Cismaan Guuleed ma siiseen. kulanka taageerada waxa lagu soo bandhigay Tixab Buraanbura oo haween ka soo qayb galay ay u tiriyeen Muxubo inay tahay qof kaalinta loo igmada ka soo bixi karta. dawladda waxaan ka codsanaynaa waxa aan xaq u leenahay oo gabdhaha ah hadday noqoto wasiiro hadday noqoto agaasimayaal gabdhuhu waxba ma dulminayaan. waxaan doonaynaa dawladda aan u sheegaynaa isimadana aan leenahay waxaan rabnaa in ay gabdhuhu kaalintooda helaan. gabdhaha wax ma khiyaamaan wax ma xadaan wax ma sameeyaan. degmooyinkaas quruxda badan ayaan horta leenahay dadka horta hana bartaan caalamka sanadka maanta dad badan baa na baranaya. kulankan taageerada ayaa ku biiraya kulamo xiriira oo Muxubo Cismaan Guuleed loogu qabtay gudaha Puntland iyo dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Ingiriiska oo dhawaan ka timid waxaana guud ahaantoodba ay muujinayaan taageerada ay u hayaan Muxubo Cismaan Guuleed. Maxamed Deeq Cabdallah TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso.